Soomaalidu waxay aad u qiimeysaa arrimaha jacaylka tan iyo qarnigii cilmi boodhari ama Qays iyo Layla. Haddaba daawade maxaa kala socotaa taariikhda qarsoon ee jacaylkii Qaali iyo Raagi. Qaaliladan waa fanaanad aad u daayar muuqaal ahaan markii loo eego fanaaniinta kale. Waxa ay ku dhalatay kuna soo kortay Galgaduud Soomaaliya. Waa hobalad ku caan baxday ku luqaynta heesaha jacaylka iyo waliba daadiska. 7 sano ka hor ayay fanka ku soo biirtay waliba waxa ay masraxa la soo gashay hees jacayl oo aan wali ka go'in dhagaha taageerayaasheeda. Waana heesta ugu horeysay ee abid qaado taasoo sababtay kaalinta wanaagsan ee qaaliladan kaga jirto fanka Soomaaliyeed. Qaaliladan waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee fanka daayar ku soo gasha, waxaana intaas u dheereed in luuqdeeda iyo muuqaalkeeda kala ahaayeen kaaf iyo kala dheeri. Bal in yar aynu jaleecno Soomaali weynay sidee baan waxyeelaa iyo sanadkii 2012 sababtii jacaylka sanbabayga qaado saygiin fayda sidoni galay Soomaali weynay sidee baa waxyeelaa. nasiib wanaag qaaliladan waxa ay durbadiiba heshay dad badan oo aad u taageera walow aysan xilligaas heesa badan sameeynin duruufo jira awgood. Sanadkii 2014 ayay qayb ka noqotay silsiladii Hayraasan iyo Hayga Roorin, waxayna Mursal Muuse ku weerartay heestii Hayga Jabin Rajada. intaasi wixii ka dambeeyay qaaliladan fankeedu wuxuu gaaray dal iyo dibad, waxa ayna sameysay albumno badan oo garab weyn ka siiyay abwaankeeda Daahir Calasow. waxay mar noqotay qoys faneed, waxayna nolosha la wadaagtay fanaanka caanka ah ee Liibaan Jigjiga inkastoo waqtiga iyo waayuhu kala geeyay. kadib maalmihii wacnaa ee Liibaan Jigjiga iyo qaaliladan waxaa jiray xan iyo xamxamti baaxaysa in qaaliladan iyo Kaamirmaan Raagi Cabdi jacayl ka dhaxeeyo. tuunka ugu weyn waxa uu yimid 2018 markaas oo ay soo qaaday muuqaalka heesta jacaylka ka ceebadhayo, taas oo ay dadku arkayeen inay ku garaacayso dhigeeda Raagi Cabdi oo ay xilligaas xurguf dhex martay maadaama ay ka soo muuqatay channel ka baxsan kiisa oo iyada hore aan looga baran. هاي عروض علي عن عدكاga garan carabkaadiga adiga badalay yar waa gelin dambe awrki cunay heryado anigu ka caloogoay ashbigu ku laba urtiyo jacaylka 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 ka ceebadayo. 31 January 2019 waxay ahayd xilligii tuxunbaxa. qaaliladan ayaana barta YouTube soo dhigtay heestii adaa qurux iyo wanaag, adaa qotun iyo hanaan, aday dadku ku qireen, adaa rag qiimo dheero, adaa qorshahaygu yahay hee inaan qoys wada dhisne, taas oo ay ula jeeday Raagow raali noqo. intaas ugu maysan leexanina waxay tiri waxa tahay qayb kamid ah naftaydan qaaliga qadarin baad mudan tahay miyaan qofba kula simaa weewe adaan qurxiyo wanaag adaa qotun iyo hanaan adaa dadka ku qireen waxa tahay qayb kamid ah naftaydan qaaliga qadarin baad mudan tahay miyaan komentiyo badan kadib waatan qaaliladan oo ka jawaabaysa su'aalihii ka dhashay heestii adaa qurux iyo wanaag xilli ay si wada jira shashada uga soo muuqdeen iyada iyo Kaamirmaan oo xilligaasi daawadayaashooda ka dhaadhicinaya sababta ay mar uun u dadabgali laayihiin. wax kale waxa la dadka raagi qalbi iskursada anida aroos duubeen aroos oo raagi aroos duubana waa keesa soo aroos dan macniis waa arnay dad fool oo aroos qurux badan dhigtaan Suuriya iga raal noqdo dad aroos qurux badan dhigtaan dad oo tartiib yar iska dhigtaan anaga marka waxaan go'aansan diyaarad inaan ku sameeyno lacagta diyaaradda aruurinayna adduunyadu